wareer kalamaanow war meesha maxaa ku haysaniyo horiyo dabadiid baatiini marka hore adina ugu soo darsan arberigo dhan xamar jidkiisaan maray waxaan soo xasuustay bari ilmo karbaash wataa beledka joogi jireen adeer sab leesku dhihi jir hadda waxaan arkay ilmo dhidinoo qoraga baynaadiisa u fidsantay adeer istaag shuq ku leh oo walaalow majidadkay ku soo laabteen kuwaas ilaahay nagu ma soo celshay ciidan boolis oo dhidinoo muluqshaawaay dhagxaantii miyaa qoryo loo dhiibay war ilmaha aad sheegayso waa la rabaa ciidan dhallinyaraah to rag waaweyn oo askarta hore lama joogaan warna miyaa may dheegi jiray lafagar iyo lusku dhawe iyo halkii naftan inshaani hob iyo halka inoo reebaan lan heli alxamdulillah war ilmaha yaan la askarayn aawa hay-adihii dhihi jiray war adeero ciyaalkiina la askareeyey hadday somalilan soo weeraraan dhegtaa iyo dhabankaasa ciyaalkayguna ku dhufan doonaan wadiyaa hooy lagu xamdo lagu xasuustaa ka hadaysaan liidi wadiyaa war anigu waxaan sheegayo waa boolis dhallinyaraa haba iska jab yaraadeenoo caana booraha luu korsho caano xoolaad ma arage laakiin daadii askarta noqoleed waa gaareen gobolaaba dhaafay laakiin dad waayeeluhu inay la joogaanaan rabay marka waxaan dhihi lahay hey isgoosyadii ilmaarooge askartii dalka aawayhe isgoosyadii ilmaarooge askartii dalka aawayhe war mushaar nin weyn dawladdu ma bixido 65 ayaan isku dayay inaan askari qorto waa liiga diiday maalintii damaanta dhagaxan ku istaagay lafaada yar qoriga ka dheer la yidhahay naga laabo laakiin hadda dad aniga ka dheer la qoray war aniga ba xitaa qafaalkiisa deetameeyadii waa laga reebay war anigu waxaan muqdisho goobjoog u ahaa aamin ambulance markay shaqada bilowday hal gaari oo caasi ay ku bilowday ka horna gaari gacana lagu qaadi jiray dhaawacyada war imaka aamin miyay naaxday haddana ambalaasyo badan oo adeegii iyo kuraastii leh ayay ku shaqaynaysay meel kastoo wax ka dhacaanna si degdegay dadka u gurmanaysay haddana waxaa la yidhi shaqadii waa laga joojiyey marka waxaan la yaabanahay dhaawacu dhiigbaxa u dhintay miyaa go'aankaa macnihiisu maye waa ayaan cidina badbaadin warniyo waa waalantiray dhow walba miyaa u xiiranaysaan war may baa dheega jiray elen doqoni dibka makale daaminka ay meermeerisa war saas maahine waa elen doqoni ambalaasay celcelisa warnimada waxaa la yidhi qofkii hali ka luntahaan gorofuu gacanta geliyaaye waxaan u malaynayaa dawladdu waxay istiri haddii gurmadyadu yaraadaan qaraxyadaa yaraanaya war maya nin walba ehelkiisa soo doonta war taliska boolisku waa beeniyeen inay ambalaasta shaqada ka joojiyeen backa sii yeereena war waxa shaqada laga joojiyaa min ambalaas keliya maaha goormaa idinkugu dambaysay tagsigii dhoweeye la dhihi jiray maxaa kugu dhaafinta kuwaa tareba mug horaa la waayey war waxaba ma bajaajkaas ku fuuqsaday warwarka ha naga dhex gelin inaana dhegaysta dembiilayaal hal tagsi dhoweeye ka kiraystay ayaa shirkaddii oo dhan shaqada looga joojiyey marka waxaan la yaabanahay dembiilaha dawladdu arki weysay tagsiila ma arki karee hawshu ii taaba aan ku tuntee miya anigu waxaan la yaabanahay dadka u shaqay maayo loona shaqay maayo shaqaysana maayaan say gadhku noqon karto muga waxaan dhihi lahay bini'aadan taamuhu ma jiroon tala u baahnayne mudanow tilmaan gaabanaan rabay inaan taabto nin tashkiilsan oo taada rabatiina ku cayaaray ee tahliilo baas soo cabee dhimasho tiigsaayo tub la gooyey ee dhagax la tubay tuug ma celiyaane taabagelin ammaan iyo haddaad nabad ku taamayso marka hore ilaah tawakalee xaqa ku toosnaada marka xigana tabya xeeladkan shacabku taageero war khilaafkii iyo buuqii sabdigii dhawaa ka dhacay baarlamaanka waa la xaliyaa la yidhi sabdiga soo socdoona furmaaha la yidhi baarlamaanka kaliya ayaa doodayaa la yidhi saxaafaduna goobjoog ayay ka ahaanaysaa ayaa la yidhi laakiin maalinta labaad oo lafaha la iska garaacayo madaxda amniga loo yeerayo saxaafaddu bannaanka waa la yidhi foori ganjeelo war way hagaagsan yihiin baarlamaanku iyo gacmo geli jiray hoos baa loo dhaqaa anigu saxaafadda waxaan dhihi lahay maalinta amniga laga doodayo shacbiga farriin fiican aad u soo gudbin lahaydeen haddii laydiin diiday maalintaan hore xildhibaanadu murmayaa waxba ha teginina soomaalidu waxay ku mahmaadaa wax la qariyo qurunaa ku jira waxa saxaafadda laga qarinayaa maxay yihiin warnimayow amni derbi laba kulan baa loo kala qaaday kulan saaxiibtinimo iyo mid lafah la iska jibinayo kulanka saaxiibtinimadana waxaa garoonka golaha shacabka loo ogol yahay laacibiinta wararka iyo taageerayaasha kulanka lafah la iska jibinayana labada kooxood ee baarlamaanka uu kala bixi doono ee golaha shacabka iyo golaha shacabka keliya ayaa ku ciyaaraya
dhawaaqaya garoonka taageerayaashii lacibiinta wararkana bannaankay ka joogi doonaan garsooraha looga dhex tagayaa meesha war taliyaasha baarlamaanka imaan doono jenaraal bashiir goob wuxuu soo bandhigi doonaa waxqabadkii ciidanka asluubta laakiin waxaan la yaabanahay kuwa kale waxay la imaan doonaan war kollayba hadday xirtaan guriga waxay bannaanka ula soo baxayaan lama yaqaan run iyo been waxay yihiin waxaan odhan lahaa beryay badowsataa aadanaha hawl bilaawi bacdigeedna waa baranayaa baabka ay tahay bigelkii la tumay haatan waa dhaga barjoobeen weelkii beenta lagu beegi jiray waa ka buuxsan war baarlamaanka aqalka sare shaqadiisa waa iska wataa maantana wasiirka haweenka ayaa hor tagtay waxayna tidhi meel hooyo lagu noqdo soomaaliya ay ugu liidata adduunka war wasiirka caafimaadkay ahayd hooyo markaad maqashaad wasiirka haweenka u qaadatay kaala horta wasiirkii nimanku aaway marnaba baarlamaanka ma hor yimaadeen war mada isaaq musin hayo dhegaysadaan geeg may ballaray kuuri safiir ha magacaawtay leeray soomaaliyadan ha magacaawtay may liyaabana kim jong qalalafkii haay walaasha ma laha magacaaway ang male war kuuriga koonfureed waa inay waxba kalama ogide warkayga dhegayso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya su'aalihii waa sugayaan baa la yiri waxaana kamid ah su'aalaha la weydiin doono Israa'iil iyo Falastiin Shiinaha Kenya iyo Somaliland iyo safarada tirada badan ee madaxweyne Farmaajo war islaafka Soomaaliland ma la weydiiniyo war waxaan dhiilaa qof ahaan intii baratay oo qayr garanaysay qabni weyn inuu leeyahay wiilka loo qiray qudhayduna sidaan u arkayaa qabatintiisii khudbad iyo markay hadal tahana waa qareen culus wax sidaasa su'aalaha qarbigu qaadi mahayaan war qabka weyni waa waxa qariye qarannimadiinni war horta ra'iisul wasaaraha ma la weydiinaya waxaad ballan qaaday maxaa ka fulay war agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhiga sonkor xilkii waa laga joojiyey sonkor haddii xilkii laga qaaday cusba ma lagu bedelayaa war ani wal siin sheegay wal mooshidini dhagansada annaga wadana lanki erijari ya warda dheer hagori hilkuna kagaadi war gudoomiye degmo u qudbeeyay dadkii degmadiisa wuxuuna yiri habeen dambe baaritaan amniga lagu sugayaa jiri halo diyaar garoobo war maxaad u yeebaysan waa kii yiri gudoomiyaha gobolka howlgal guri kasta lagu baaraya jira ee halo diyaar garoobo war hadda koor waxa la yiri islaana wiilkeeda iyo wiil kale lagdameen markaasay tirahooyo qonof kii kale wuxuu yiri eedda waad noo wada sheegtay marka gobolka Hiiraanba waxa la yiri ciidamada howlgal bay qaadi doonaan berina waxay ku wajahan yihiin Tuuleheble iyo Tuuleheble warada badawaatiin dawladnimada casriga iyo ciidamada casriga sidaa u shaqo war adeero dawladda Soomaaliland sirteeda ma fashiliso waa ka mamnuuc wariya howlgalkun anjeedna hadii hay'asi un soo binamayno halawsan war waxa la yiri wixii shacabka lagu soo sabay looma soo sido halkii subaga laga dhowrayay sunuga keeneen intaasaan idin sheegaya yaanan sii badin war habeen walba ma intaas la qaadilota war Allah noo kala kaxeeyo meesha war waxaasi war ma ahana dalka u shaqeeya wariyaal arang alasiya